وحي من الروح لا وحي من القلم هز المشاعر من رأسي إلى قدمي لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم لبوا النداء فما قرت رواحلهم حتى أناخ قبيل الصبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. باب الكلام. وحين هلكن إن شاء الله تعالى كأرك دونا كلامك أما كتابك أجرومك شريحي سان هيسنانا وياي عشماوي حاشية العشماوي 10 كيسي كوباد أيينو كأركينا arday waxaynu ugu talagalay cashirka inaynu xifdino qaabkan u dhigayna aynu isla socono hadaba cashirkeenu wuxuu ka kooban yahay 5 qodob casharka baabul kalaam ka bilowda 5 qodob baa hadafka sheekhu ina baraya ayuu noqonaya waa 5 qodob qodob lixaad ha ku soo darin 5 qodob ee baabul kalaam uu ka kooban yahay 5 qodob inaynu ku eegaano ayaa muhiim ah 5 qodob bal ila eega soo ma haysiin matniga boga 720aad matniga ma haysiin boga 720aad halka matnigii kitaabka ayaa ka bilaabanaya oo inta hore iska hordhac iyo waxay ahaayeen waxyaabo u dhigma ayay ahaayeen boga 720aad حاشيتنا 740 bay ka bilaabmi doontaa labadaba waa inaad isla haysataa mar 720 ka inuu soo saari marka dambe gebagabadana 740 ka inuu soo saari hada 720 ka ayuu cashirku ka bilaabanaya waa matniga 5 qodob oo qura weey waxa halka laga hadlayaa qodobka koobaad waa kalaamka iyo taariifkiisa qodobka koobaad waa kalaamka iyo taariifkiisa waa koow وصدرك وهرية قضب كاللباد وأقسام الكلام وحليلة كلامك غيبها أوليه هي أقسام الكلام وكلامك غيبه سقضب كاللبادنا قضب كالصدحات وعلامات الأسماء وفالاسم بك بالله بدونا قضب كأفراد وعلامات الأفعال والفعل يعرف بقدبك بالله بدونا قضب كالشناب وعلامات الحروف oo sadarka ugu dambeeya cashirkeena ee wal harfu ma la yasluhu ma'ahu daliil al-ism wala daliil al-fi'l 5 qodob oo qura weeyaan cashirkeenu wuxuu ka hadlayaa waxa uu soo horeeyay kalaam hadii kalaam loogu dhawaaqo iyo hadii kilaam loogu dhawaaqo iyo hadii kulaam loogu dhawaaqo intuba way kala duwan tahay hadii kilaam loogu dhawaaqo oo kaafka aan kasriyo on kilaam idhaa وداوعيده qofka soo gaadha arabtu waxay oran jireen fulaan bihi kilaam bay oran jireen kilaam waa daawaciyada qofka soo gaadha gabayaagu waa kiilaha tamurru bika labdalu kalma hazimatan wa wajhuka wadahun wa thagruka basimun kilaam waa daawaciyada kulaam waa dhulka dirida ee biyo baatoona aan haynin hadii kulaam leeyahay kaafka la godo وادولك dirida ee biyo baatoon aan haynin kalaam hadaan idhaayo kaafka kordhigo waa kanaynu sharxayneen hadda halkan ku arki doona insha Allah ta'ala kalaam kilaamku waa dhaawacyada kulaamkuna waa dhulka dirida kalaamkuna waa hadalka lagu wada hadlo oo kalaamka aan sharxayo luqawiyiintu sibay u yaqaaniin naxwiyiintuna sibay u yaqaaniin fuqahaduna sibay u yaqaaniin متكلمين تنسيبه ويقانين كلام مركان دونين أصوليين تنسيبه ويقانين إريق كلام هذا كلام معها كلامنا معها كلام مركان سوقاتين كافك كردقو نينك النحويليه يسيبه شرح دونا نينك اللقويه ينسيبه شرح دونا نينك أصوليه ينسيبه شرح دونا نينك متكلم ينسيبه شرح دونا أصحاب الفلاسفة سيبه شرح دونا ninka sidaynu ognahay naxwiilaha sidoo sharxi doono ayaan doonaynaa inaan kalaamka ogaano
luqadda ereyga kalaama waxa loo yaqaanaa waa ismul masdar ficilka kallamihi uu leeyahay kallama uu la hadlay maaha uu la hadlay baa la yidhaha uu la hadlay aayadda qur-aanka u fiirsa markaad macnaynayso wa kallama allaahu muusa marka la leeyahay muusa ilaahay la hadlay ha odhan ilaahay baa muuse la hadlay ha odhan wa kallama allaahu ilaahay baa la hadlay la hadlay iyo la hadlay way kala duwan tahay wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay baa muuse la hadlay kolka ficilka kallama ah masdarkiisa takliim baa la yidhaahdaa ismul masdarkiisana kalaam baa la yidhaahdaa kalaam waa ismul masdar ficilkaa kallama ka yimid ayuu noqonaya alkalaam luqawiyiintu waxay yidhaahdeen kullu maa afaada wax kaste oo macno faa'iideeyo kalaam bay u yaqaaniin wuxuu hadduu macnaba kuu faa'iideeyo hadalba yuuna noqonine kalaam bay u yaqaaniin haddaada tidhaa albaabkii masaajidku mee oon farta ku fiiqo farfiiqana luqawiyiinta agtooda kalaama dadka luqawiyiintii farfiiqa kalaam bay u yaqaaniin ragga nuxaadda ee naxwiilayaashu kalaamka waxay odhan doonaan wixii 4 shardi laga helay 4 shardi shayga 4 shardi markaynu ka helno unbuu kalaam noqon shardiga koobaad waa allafdu inuu lafdi yahay shaygani shardiga labaadna waa almurakabu inuu yahay murakab shaygani shardiga saddexaadna waa almufiid inuu yahay mufiid shardiga afraadna waa alwadcu alcarabi afartaa shardi marka shayga laga helo ayuu shaygu kalaam noqon qodobka koobaad waa maxay baynu nidhi waa allafdu waxa kalaam noqonaya waa inuu lafdi yahay haddana waa inuu murakab yahay haddana waa inuu mufiid yahay haddana waa inuu alwadcu alcarabi ku yimaado علم اللفظ إرجع اللفظ هو محي طلب اللي كلامك وينه لفظ يا عيبه نريه لفظ هو مصدر فعل كاللفظاء كيمد عربت الله بقضب يسكو قبتين قالوا واحد هذين لفظه وطفي لفظه وطوري قالوا واحد هذين لفظه وطفي لما داري ما يسكو قبتي لفظه ما تفدا مسوا توردا لبدا معنى وي جيران رغ قلبا مد بي قاتين لفظه وطفيده اما لفظه وطوريده هذه لفظه وطوري اندا توريداسay rag mudlaq ka dhigeen ragna taafku tuuro oo tufidii ayay ku qeydeen hadan caagada qaadon gacanta ka tuuro waa lafada hadan kubad qaadon madaxa ku tuuro waa lafada hadan kubad qaadon cagta ku tuuro waa lafada hadan timir yaroon cunayo lafteedii afka ku tuuro waa lafada ragga qaar waxay leeyihiin tuuridoo dhan ayaa lafada loo yaqaanaa ragga qaarna waxay leeyihiin wuxuu afku tuuro oo qura ayaa lafada la yiraahdaa waxaan gacanta ku tuuray tuurid maaha waxa aan lugta ka tuurayna tuurid maaha waxa aan meel kale ku tuurayna tuurid maaha wuxuu afku tuuro oo qura ayaa lafada ah kolka waa tufiday markaa ileen afku ku badiyo waxa ma tuure wuxuu tufaa ama candhuuf ama laf lagu hayo ama wax la mid ah lafada wuu tufay haddaba waxa shardiya waxa kalaamka noqonaya hadalka kalaamka la oranaya inuu lafdi yahay lafdigu waa wuxuu afku soo tuuray waa inaan afka kaga hadalnaa haddaan afka kaga hadalno oo afkeenu uu soo tuuro ayuu lafdi la oranayaa waxa waa masdar ereyga lafdiga ismi mafcuul baana looga jeedaa waxaana la yiraahdaa min ta'biir al-masdar wa iraadatu ismi al-mafcuul wa al-malfuuz kii la tuurayay weeyaan markaa علم اللفظ لبا شرطي وقود ayuu leeyahay waxa lafdi loo yaqaana asalahaan wixii cod ay dhagto maqasho leh xuruuf la higaadin karana leh ila soo labada qodob ee lafdiga lagaga baahan yahay lafdi waa maxay hadii lagu yiraa waa inaad tiraahdo waa wixii dhagto ay maqlayso xuruuf la higaadin karana leh saddex shay baa iga baxay oo lafdi ahayn waxa cod dhagtu ay maqasho aan lahayn xuruuf la higaadiyana aan lahayn bal baasha ay kor hayo soo eega lafdi miya maymaha lafdi oo maxaa diiday horta cod male oo hadaan dhageysta ma maqlayadii xuruufna male waa maxay ma xaraf ma xuruuf bay leedahay waa male haddaad aniga soo eegtid ama gidaarkan iga dambeeyo aad sii eegtid culima lafdi ma aha sababtuna labadii shardiba way ka maqan yihiin codkii ay dhagtu maqlaysay iyo xuruuftii la higaadinayay culimo waxa kaloon lafdi ahayn waxa labada shardi mid ahaan sita
midka kale uu maqan yahay maalan cod buu sitaa laakiin xuruuf male badhagayso aye ma lafdi baa dhegtii way maqlaysaa laakiin maxaa ka dhiman dhegtii way maqlaysaa maxaa ka dhiman xuruuftii baa ka dhiman lafdi maaha haddaba cod wuu yahay xuruuftii baa ka maqan waxa kaloo isna aan lafdi noqonaynin waxa xuruufta uun sita ee codku uu ka dhiman yahay bal kitaabkeenna hoos u yar eega hadda ha akhriina eega un laakiin maxaa idiin muuqda xuruufi ma idiin muuqataa ma lafdi baa xuruufta halkaa ku taallaa jawaabtu waa maya lafdi ma haddee xuruufta halkan ku taallaa oo maxay xuruuftani lafdi u noqon weyday xuruuftani maxay lafdi u noqon weyday eeg xuruuftii way sidataaye waxa ka maqani waa dhawaaqii laakiin haddaan akhriyo mar alla markaan sidaa u bilaaba ayuu lafdi isku bedelayaa oo dee dhawaaqii buu yeeshay markaa culimo waxa lafdiga la odhanayaa waa waxa laba shardi leh markaa coday dhegtu maqasho iyo xuruuf la higaadin karo kow kalaamku waa inuu lafdi yahay codka iyo xuruuftaba waa inuu sita waa shardiga koobaad shardiga labaad ee kalaam laynooga baahan yahay waa almurakab ereyga almurakab ah waxaa loo yaqaanaa laba kelmadood oo laysku geeyey ama laba kelmadood wax ka badan oo laysku geeyo ayaa murakab la yidhaahdaa almurakab waa inuu murakab yahay oo laba kelmadood oo laysku geeyey uu yahay ama wax ka sii badan waa inaan jaa'a iyo muxamed isku geeyo oon markaa maxay ugu dhawaaqo jaa'a muxamedun aan ugu dhawaaqo jaa'a muxamedun jaa'ana ficilkii bay ka taagan tahay muxamedna ismigii buu ka taagan yahay waa laba kelmadood oon isku keenay jaa'a muxamedun murakab waa inuu yahay maxaa iga hadhay oon haddaba kalaam noqonaynin wixii kelmad qura ayaa iga hadhay oo maalan haddaan jaa'a keligeed ku hadlo jaa'a keligeed haddaan ku hadlo kalaam ma aha hadda lafdi way tahay oo cod iyo xuruuf way leedahay laakiin maxaa ka maqan murakabnimadii labadii kelmadood baan meesha oolin waa inuu laba kelmadood oo laysku keenay yihiin almurakab shardiga saddexaad culima almufiid waxaa loo yaqaanaa soomaaliga markaan ku soo dhowaynayno waxa marka aad ku hadasho aan heel lagaa daba odhanayn marka aad ku hadasho waxa aan heel lagaa daba odhanayn baa mufiid aynu odhanaynaa maalan haddaan idhaahdo hadday cadceeddu soo baxdo ma kalaan baa hadday cadceeddu soo baxdo indalacat ishamsu baan idhi indalacat ishamsu horta ereyga indalacat ishamsu hi lafdi sow maaha oo cod iyo xuruuf ma wato murakabna sow maaha indalacat ishamsu markaan idhaa oo saddex kelmadood buuba ka kooban yahay inta iyo dalacada iyo ashamsu buu ka koobay saddex kelmadood buu ka koobay indalacat ishamsu laakiin mufiid maaha oo hee indalacat ishamsu haddaan idhaa cadceeddu hadday soo baxdo maxaa lay odhanayaa heebaa lay odhanayaa waa inaan war ku daraa markaadee warka aan heel layga daba keenaynin ayaa la odhanayaa waa mufiid sida dalacati shamsi oo kale cadceeddii baa soo baxday shardiga afraad culimo waa alwadcu alcarabi kelmadani waa inay tahay miday carabi dejisay waxa inaga baxay haddii carabi ayna dejinina soomaalidu ay dejiso ama faransiisku uu dejiyo ama ingiriisku uu dejiyo ama cidda aan carabta ahayn hadday ereygan dejiso ama hadalkan ay dejiso kalaam la odhan maayo oo maxaa diiday dee wadci carabiya muna ahayn alwadcu alcarabi ma aha culima ila socda ereygaa wadciga laba qodob baa la ysku qabtay qole waxay yidhaahdeen waa alqasdu waa in loo qasto qoladaasi waxay iska saarayaan ninka hurda hadduu riyoodo uu jaa'a muxamedun ku riyoodo kalaam noqon maayo jaa'a muxamedun taasi maxaa sababay oo kalaam ayna u ahayn jaa'a muxamedun markuu leeyahay dee qasad buuna lahayn ninka waalani hadduu hadlo oo hadal dhammaystiran ku hadlo kalaam noqon maayo isna oo sababtu waxa weeye ninka waalanina qasad ma leh waxaa la yidhaha carabtii hore markay doonayso qofku inuu waalan yahay in kale maxaa tidhi bay odhan jireen maxaa tidhi haddaad doonaysa ninku inuu waalan yahay markuu hadlo maxaa tidhi un baa la yidhaahdaa hadduu caadi waalaya kuma soo celin kara hadalkiisii hore haddii laakiin ilan waalidu waa noocye uu nooc ka mid ihi ay hayso dee waalidii khatarta ahayd ayna ahayn hadalkiisii uu ku soo celinayaa waxaynu uga jeednaa markaa ka waalani qasad ma leh ka hurdaana qasad ma leh ilmaha yaree sabiga ee hayru mumayiskiihina qasad ma leh saddexdooduba hadalka ay ku hadlaan haddaba kalaam la odhan maayo culima kalaamka haddaba shuruuddiisii ila eega afar baynuu shardinay
waa inuu yahay lafdi marka koobaad waa inuu yahay murakab marka labaad waa inuu yahay mufiid marka saddexaad waa inuu yahay bilwadci marka afraad kalaam waxa noqonaya wixii afartaa laga wada helo culima cashirka haddaba ila socda tusaalaan bixini kalaamahe jalasa muxamedun waa kalaam jalasa muxamedun maxamed baa fadhiistay waa kalaam maxaan ku gartay inay kalaam tahay miisaan baa layna siiyey aynu ku qiyaasayno tacriifka soo ma arkaysa tacriifka waxaad ogaatiin tacriifku inuu miisaan muhiima yahay tacriifka aynu saarno jalasa muxamedun inay kalaam tahay horta lafdi ma tahay afartii shardi aan ka baadhne lafdi ma tahay marka koobaad ها waa lafdi jalasa muxamedun codna way leedahay xuruufna way leedahay murakab ma tahay shardigii labaad jawaabtu waa nacam murakab way tahay oo hee waa laba kelmadood waa jalasa iyo muxamed la isku geeyey mufiid ma tahay marka saddexaad waa shardigii saddexaad ee mufiid ma tahay jawaabtu waa nacam mufiidna way tahay oo maxay faa'iideynaysaa inuu maxamed fadhiistay bay faa'iideynaysaa bilwadci miyay tahay بالوضع والوضع العربي بالي هذا بالوضع ووضع العربي وضعنا ويتهاي وضع وامحي ووحي عربي دجسي وأف عربية أما قصده كاترا هذا بوالقه ليا جلس محمد هذا بوا كلام علم سؤالا اللي ويديو انت انا الكادافين جلس كلي جيد ما كلام با نحادي ذي كلام نقوم ويدي مركب معها الكلام ما كلام با هذا الكلام ما كلام با سؤال هدان idin weydiin lahaa markaan cashirka bilaabaynay oo idin oran lahaa al kalaam ma kalaam ba jawaab kalaam waa kalaam baad oran lahaydeen maxaad u jeedaa baad wad la yaabi lahayd hadda maxay noo wada muuqata al kalaam kalaam maaha al kalaam kalaam maaha oo sabab ereygan al kalaam ihi lafdi uu yaho cod iyo xuruuf uu wataa laakiin maxaa ka dhiman al kalaam maxaa ka dhiman murakabkii iyo mufiidkii ayaa ka dhiman oo de laba kelmadood oo la isku geeyay maaha kalaamkuna afar shardi buu leeyahay waa inuu lafdi yahay waa inuu murakab yahay waa inuu mufiid yahay waa inuu bilwadci yahay hadaba culimo qaacido muhiima halka kaga baxnay shantii qodob ee cashirkeenu uu ka koobnaa qodob kamida ayaynu hadda halka kaga baxnay shan qodob uu cashirkeenu ka warbixinayaa baynu nidhi qodobka koobaad waa maxay waa tacriifka kalaamka ma huwa al-kalaam su'aasha warta kalaam maxaa la yiraahdaa su'aasha ayaynu ka baxnay hadaba culimo qaacidadaasi weligaa kugu soo noqon mayso quraanka oo dhanna waynu dhamaynay wixii kalaam ku jiray inta ayr baan ku dhamaynay adigu sidaad uga shaqaysaa ay ku xidhan tahay bal faatixada ila eega inta kalaam ku jirta aan eege faatixada ila eega inta kalaam ku jirta aan eege bisinka waan iskaga tegayaa afar kalaam oo qura ku jira afar kalaam oo qura ku jira faatixada kalaamka waxa la yiraahdaa jumlooyinka iswata ee macno qura faa'iideynaya afartan shardi laga helay hadalka idil ee lafdiga ah ee murakabka ah ee mufiidka ah ee bilwadciga ah ayaa horta kalaam la oranaya faatixada afar kalaam baa ku jira bal ila eega afarta kalaam ilaahay mahad baa u sugnaatay baa leeyahay alxamdulillaahi rabbil aalamiin alxamdulillah markaan idhaa rabbil aalamiin waxay tilmaamaysaa allah bay tilmaamaysaa alxamdu mahad lillaahi ilaahay bay u sugnaatay allihii rabbil aalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooga ahaa ee barbaarinayay waxaad ogaanaysaa ilaahay awoodiisu intay leegtahay rabbil aalamiin markaad tidhaahdo caalamiinta oo dhan isagaa barbaariyahooga oo koriya isagaa dhaqaaleeya isagaa ilaaliya isagaa xanaaneeya isagaa umuurtooda oo dhan la socda waa rabbil aalamiin allaha arraxmaani naxariista waaweyn naxariista allaha arraxiimi naxariista joogtada an naxariista allaha maaliki yawmiddiin qiyaamada isaguni maaliga ah ee dadka u garqaadi doona ee dadka kala xisaabinaya iyo makhluuqa kala xisaabinaya maaliki yawmiddiin maxkamadii ilaahay baynu tagnay maaliki yawmiddiin markii hore qayb baynu kula hadlaynay alxamdulillah alxamdulillah kamaynaan lahay ilaahu mahad baa kuu sugnaatay maynaan lahay alxamdulillah ilaahay mahad buu leeyahay الله رب العالمين الله الرحمن الله الرحيم مالك يوم الدين الله أمده وقرقادي دونا محكمة ديس اللي هرتقيو أرمينا إلهي سرتاقن دي هذا سيدي قيب كهي يينان الله هدلنا الله خطابنا إياه نعبد بيهيدين ليلة إياه نعبد بيهيد لكن قال دان محكمة دي تاقنها إلهي توصل هذا مركز إلهي أمانيسي واحد موديسا مربا دوغسي دوانيسي إلهي يد إلهي سرتاقتو مركز صدرنسا إياك نعبد إله أظن بانكو عابدين
وإياك نستعين أذيكم بانو كالمكو ويديسانينا إياك نعبد انت كهريس أردني وكلام waxay ka warbixinaysaa mahadda ilaahay iyo ilaahay tilmaamihiisa waa hal kalaama alhamdu ka bilow ila maliki yawmiddin waa hal kalaama kalaam qura ayaa ku jira shalay waxaan idin soo tilmaamay kalaam aan marfuuc lahayn ma jiro baan idin ku idhi haddaad tiraa rabbil caalamiin waa tilmaam baan ku tilmaantu waxay la socotaa kala tilmaamayo uno allah ah arrahmaan waa tilmaan oo ilaahay baa la sii tilmaamaya الرحيم واتلمان مالك يوم الدين واتلمان هل كلام ويان انتاسي كلام كاللباد علم وحوي إياك نعبد إله أضيكم بأنك عابدينا وكلام كاللباد إياك نعبد كلام كالصدحات وحوي وإياك نستعين إله يو أضيك بأنك عالمك ويدي سنين وكلام كالصدحات كلام كأفراد وحوي إهدنا كبالله انت كدن بيس أردن وهل كلامه إلين إهدنا نهانوني الصراط جدك نقو هانوني وي جدك أم بالله تلماميا انت دنبورن جدكم بيت تلماميسا جدك وي صراط الذين أنعمت على صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجدك أم بالله تلماميا كوي لو عرودي جدك وغان أهين كوي سيدين أغنهي باديدا أها جدك وغان أهين إله جدك نقو هانوني إهدنا انت كدن بيصور بنينا وحل كلام ويان فاتحة دي مسا كلام با علمي inoogu jira afar kalaam ayaa inoogu jira waxaynu ogaanaynaa qaaciidadan waxaad fahmi kartaayo qura kolba inta aad ka shaqaysaa intay la eg tahay sidaa darteed shan suuradood baan isku diraynaa inta kalaam ku jirta inaad ka shaqaysiin shan suuradood ayaa inta kalaam ku jirta aad ka shaqaynaysiin ka bilow bi rabbin naas قل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الفلق إيو إخلاصك إيو طبت إيو إذا جاء شنتا سورة ضاد وحا كلام كتيرا أرضي كسو شغاية جروب أيا كل أي نسكوك لتشبين دونا يوم ما أنت وعشر كيني كوبات جروب أي نسكوك لتشبين جروب كيبا هالنن أيا لقوا يدينيا جروب كلي ستوغان هلي هل كي جروب هالنن بانوك عينينا جروبكii isku xiranba 20kii ama 25kii arday hal qof baa uga shaqeynaya oo oranaya waanan soo qorno waatan naga sax group baa la isku qoraya afkana waanu kaga shaqeynaynaa kolka insha Allah taala shanta suuradood waxa kalaam ku jira ayaynu doonaynaa miisaanka aan saaraynaana waa afarta qodob afarta sharti inuu lafdi noqdo inuu murakab noqdo inuu mufiid yahay inuu bil wadci yahay afarta waa in laga wada helaa culimo waxaynu tilmaanay عشر كأنه شن قضبين وهاي قضب كي كوبات بين جبحي أو تعريف كلام قضب كلابات وقيبها كلامك وقيب سميه الكلام كلامك هو اللفظ وي لفظ المركب مركب كائل إسكوجي المفيد مفيد كائل معنى فائدين يا بالوضع وضع عربي كسجن ولبنا وضع أما قصة كسجن أما دجين عربيات كسوغان بالوضع وضع عربي كسوغان وأقسامه كلام كغيبه 3 صدح وي كلام كي صدح بو غيب سميا اسم وي وفعل إيا فعل وحرف إيا حرف جاء يمد لمعنى لأجل معنى درته دو يمد مسألة اللبات 10 كأنه كساب سنة وغيبها كلامك أقسام الكلام بينك هضلينا علمه شيخنا أجرومي وحو قاطي وأقسامه 3 كلامك صدح بو قيب سماع واسم ككوباد أو اسم بو نقن وفعل كاللباد أو فعل بو نقن وحرف كصدحات أو حرف بو نقن حرف أو جاء أي وضع لو دجيي لمعنى معنى لو دجيي حرف معنى لو دجيي أما معنى أيمد كلامكي علم صدح بينه وقيبنا هلكا أرضي مركينو مرينو وربا إنه سو كردي هلكا مركا أن مرينو وركا إنه سو كردي وحوي كتاب كأن أجرومي جاء يا عمري دقيبة يسديدي كتاب كسرية عمري دقوح يجري وصدح ذن اسمك يفعلك يا حرفنا كلامك وما قيب سماء كلمة أو قيب سنتا كلمة أجرومي يقولوا وحولي كلامك أو قيب سما
labadaa sheekh gartooda miyaynu gallaamise waynu iska dhaafnaa labada bal haddee qole waxay yidhaahdeen qaybtan aynu qaybinay ee ismiga iyo ficilka iyo xarafka soo saddex qaybood ma aha saddexdaa qaybood ajruumigu kalaamkaa u qaybsamay buu ina yidhi oo kalaamkaa ismi iyo ficil iyo xaraf ma leh wuxuu ina leeyahay camriidiga oo kitaabka ka sarreeya ihina war kalaamku uma qaybsamee kelmaddaa u qaybsantaa talow yaynu raacnaa mise waxaynu nidhaahnaa duul culima qasday baynu nahay sidii odaygii laga sheegayey maxaad u malaynayseen culimo bal hadda ila socda haddaan mas'alada fahma isnidhaa gartaa culimada inaynu galno inagoo warkeennu welibana cadaaladu ku salaysan yahay ayaa lagama maarmaana adigoo nin jeclaysi una kugu jirin gartaa ila gal bal ila dhegaysa hadda cidda qaadata waxaa jira culimo waxaa laysku hayaa kalaamkaa u qaybsama ismi iyo ficil iyo xaraf iyo maya ee kelmaddaa u qaybsanta ismi iyo ficil iyo xaraf mas'aladani waa qayb mas'aladani waayo waa qaybtana ragga xisaabtaa loo daayaa raggii xisaabta culimadaas oo kala saaraan markaa culimadii raggii xisaabta ee xisaabta yaqaanay gartaa ha qaadaan oo culimada ha soo kala saaraan inay kelmaddu qaybsami iyo inuu kalaamku qaybsami bal ila eega raggii xisaabtu waxay yidhaahdeen xisaabta sida la og yahay waxaa la ysku qabta horta xisaabtu halkay ka bilaabataa ereyga xisaab ugu yari waa maxay ma ziirooba mise waa waaxid ragga qaarkood waxay odhan jireen berigii qaaciidadu ayna sugnaanin labaa ugu yar waa laga yimid oo waxaa la yidhi war laba waa la iskala tegaya halbaa xisaaba waa laga sii tegayo waxaa la yidhi war zero baa laga bilaabayaaye iska ilaawa waxay ku tacriifiyeen xisaabta ma laha xaashiyataan culyaa wa sufla wayakuun nisba majmuucihima marka la doonayo in xisaab la tacriifiyo waa waxa laba tiro leh eeg waxaa tiro xisaabaanu u naqaanaa bay yidhaahdeen ereyga laba xisaabood leh mid ka sarreeya iyo mid ka hoosaysa labadaasoo laysku geeyana niskooda hadda imika laba soo qaado ereyga labaa soo qaado laba haddaad istiraama xisaaba eeg qaaciidadan aan ku miisaamaynaa laba maxaa ka sarreeya saddex laba maxaa ka hooseeya hal eeg labada ka sarreeye saddexda ah iyo ka hooseeye halkaa ay isku geeyo waa inay nus u noqoto imisay noqotay saddex iyo hal la isku geeyey laba maxay u tahay markaa nus bay u tahay haddaad afar soo qaadato waxaad odhanaysaa afar maxaa ka sarreeya maxaana ka hooseeya labadaa iskugu kaygee shardi afar waa inay nus noqotaa marka aan doonayno dee xisaab qaaciidadeeda inaynu hello eeg afar maxaa ka sarreeya shan baa ka sarreeya maxaa afar ka hooseeya saddex baa ka hooseeya shan iyo saddex iskugu kaygee sideed afar maxay u tahay nus bay u tahay eeg qoladii xisaabta halkaasay la mareen waxay dhahay horta annagu xisaab intaasaanu u naqaanaa arkaan ahaanna saddex rukni baa jira arkaan ahaan arkaanta xisaabtu waa saddex waxaa la yidhaahdaa waa maqsim iyo qismi iyo qasiim maqsimku waa la qaybiye waa ka la qaybinayo qismiguna waa intuu u qaybsamayo marka maqsimka loo eego qasiimkuna waa intuu u qaybsamayo marka ka lamidka ee la walaalka a loo eego haddaba culimo mas'aladan ku dheeraan mayno culimada waynu ugu yargar qaadaynaaye ila soco oo waxaa la yidhi xisaabta qaybta gebigeedu waa laba dariiqoon inay tahay min taqsiimi lkuliyi ilaa juziyaatihi taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo inay tahay min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi xisaabtu waa labadaa dariiqoo qura labada dariiq maxaynu ka dhignay inay tahay min taqsiimi lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo inay tahay min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi bal qora waxbaan calaamadinaynaa qora taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi labadaa unbay xisaabtu noqotaa taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waa kulliyin oo juziyaad loo qaybinayo iyo kullin oo ajzaa loo qaybinayo haddaba culima ila eega sow maynaan odhan qaybtu gebi ahaan waa labadaa mid ahaanun wixii qayb saddexaada ee soo baxaa khalad weeyaani ogaada qayb saddexaad wixii soo baxaa khalad weeyaani ogaada labadaa daruun bay xisaabta qaybtu kala gashaa waxaynu nidhi inay tahay min taqsiimi lkuliyi ilaa juziyaatihi
iyo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi. bal ila eg shayga markaan qaybiyo een qayb ka dhigo, haddii shaygii aan la helaynin qaybaha oo dhan oo la wada helo mooyaane waxaa la yidhaahdaa waa min taqsiimi lkulli ilaa ajzaa'ihi. maxaan ku idhi dad baan maalan dad baan qaybiyey, hadda dad baan qaybiyey, maqsimku waa dad, rag iyo dumar baan u qaybiyey. haddii rag iyo dumar, raggu keligood haddayna dad noqon karaynin, dumarkuna keligood ayna dad noqon karaynin, labadaasoo laysku keenay uun dad la helayo, ka la qaybiyo haddii la helayo aqsaamta marka la wada helo uun waxaa la yidhaha taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi. waxaana weeye maalan cawda oo kale, bal cawda inoo qaybiya. cawdu maxay ka kooban tahay? ereyga cawda la yidhaha maxay ka kooban tahay? cawdu waxay ka kooban tahay marka cawda aynu rabno xasiil, duntan yaree maad aragtay wax lagu tolo, duntan yaree wax lagu tolo waa qodobka koobaad. caw markaan ka sheekaynayno waa duntan yar ee wax lagu tolo iyo caaggan yaree dhex mara. mayla socotiin hadda culimo? cawdu waa labadaa qodob. duntu keligeed caw miyay noqon? dun yaroo halkaa iska maraysa haddaan intaan cawda furfurno oon dun soo qaato duntu waa caw miyaan odhan? caagga yaree dheer haddaan soo qaatana waa caw miyaan odhan? cawda goormaa la helayaa? magacan caw a goormaa la helayaa? intii uu u qaybsamay marka la wada helee laysku keeno, ee duntii la soo qaado, ee caaggii la soo qaado, ee samayntii la sameeyo unbaa caw la helayaa. kaa waxaa la yidhaha taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi. haddaba kalaamku markuu qaybiyey sheekha waxaa la ogaaday inuuna ahayn taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi. waayo waxa ka dhalanaya saddexdii shay oo la wada helo unbaa kalaam la helayaa. saddexda shay waa maxay? in ismi la helo, ficil la helo, xaraf la helo. laakiin waxaa la ogaaday haddii ficil iyo ismi la helo in kalaam la helay. jaaa caliyun sow kalaam ma aha? maxaa ka maqan meesha? xarafkii baa ka maqan, kalaamkiina waa lahay. aqsaamtii aynu u qaybinay kalaamka kii ay qaybi maqan tahay ayaa kalaamkii la helay. waxaa la ogaaday inuuna noqon karaynin taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi. oo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi qaybaha hadduu midi maqan yahay la qaybiyaha lama heli karo. waad ila socotaa inuuna taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi ahayn. taqsiimu lkulliyi ilaa juz'iyaatihina waxa weeyi qayb kastaaba keligeed markay noqonayso kii la qaybiyey. waa sida dadka oo kale, dad baan qaybinay, rag iyo dumar baynu u qaybinay. raggu keligood waa maxay? raggu keligood haddaan soo qaadanno waa maxay? raggu keligood mayna dad ahayn, dumarkuna keligood mayna dad ahayn. haddii eeg qayb markaad hesho kii la qaybinayay aad helayso waxaa la yidhaha taqsiimu lkulliyi ilaa juz'iyaatihi. sheekha bal aan eegna kalaamka markuu qaybiyey inay qaybta noqoto. haddii taqsiimulkulliyi ilaa juz'iyaatihi aynu ka dhigno waxa ka dhalan xarafku keligii waa kalaam inaan nidhaa, ficilkuna keligii waa kalaam inaan nidhaa, ismiguna keligii waa kalaam inaan nidhaa. arma sax baa? xarafku qad keligeed ma kalaam baa? ismigu keligii ma kalaam baa? maxaa haddaba inoo soo baxay? war qaybta marka la yidhaha nimanka xisaabta ku takhasusay waxay caddeeyeen inay qaybtu labadaa dariiqoo qura tahay, qayb saddexaad ma jirto. kalaamka markuu qaybiyey uu ismi iyo ficil iyo xaraf u qaybiyey, labadii qayboodba khalad buu ku yahay. labadii qayboodba muxuu ku yahay? khalad buu ku yahay. waayo taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi waxay noqonaysaa saddexda qaybood oo la wada helunbaa kalaam la helayaa weeyi. taqsiimulkulliyi ilaa juz'iyaatihina waxay noqonaysaa qayb kastaaba keligeed bay kalaam noqonaysaa weeyi. labada qayboodba waa khalad. bal haddaba kelmadda ma qaybina oo bal ma eegnaa kelmadda. haddaynu kelmadda qaybinno oon u qaybinno ismi iyo ficil iyo xaraf aynu kelmadda u qaybinno, waxaa halkaa ka soo boodaya amase ka dhalanaya in ismigu keligii uu kelmad noqdo, ficilkuna keligii uu kelmad noqdo, xarafkuna keligii uu kelmad noqdo. waana sidii saxda ahayd ee la yaqaanay. waana taqsiimulkulliyi ilaa juz'iyaati. garta ayaa yeeshay. ma camriidigaa yeeshay mise ajruumiga? camriidigaa yeeshay. ajruumiga sheekheenna mas'aladan waxaynu leenahay sheekhu mas'aladan sawaabkii wuu ka yar leexday. bal hadday leeg wa aqsaamuhudan ha'dani waxay u noqonaysaa kalaamka. wa aqsaamuhu ha'da ku jirtaa kalaamkay u noqonaysaa. haddaba kalaamku qaybahan ma lehee kelmaddaa leh. kelmadduna waa ereyga jaa'a iyo muxamed iyo qad iyo kuwaasaa qaybahan iska lahaa sax ahaan marka la doonayo. wa aqsaamuhu kalaamka qaybihiisu alaaatun saddex weeye. ismun ismi weeyaanka koobaad, wa ficlun ficil weeyaanka labaad, wa xarfun xaraf weeyaanka saddexaad.
xarafka oo jaa yimid ama loo dejiyey limacnan macna loo dejiyey ama macna u yimid qodobkii labaadna culimo waan ka baxnay cashirkeena maxaynu qaadanay inuu kalaamku imisa u qaybsamo ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaas oo qaybsamaa saxdana kelmadda qaybta leh kalaamku ma laha baynu nidhi ma ila socotiin qaybta yaa iska leh ma kalaamka mise kelmadda ayaa iska leh kalaamku ma leh baynu nidhi haddaba waxaan ogaanaynaa culimo ismiga kelidii 5 xukun baa ku tacalluqa 5 dhinac waa inaad ismiga ka barataa ficilkana kelidii 5 xukun baa ku tacalluqa 5 dhinac waa inaad ka barataa xarafkana kelidii 5 xukun baa ku tacalluqa 5 dhinac waa inaad ka barataa imisa halkaa ka soo boodaya 5 iyo 10 qaybood eeg ismigii 5 baa ayaa ku tacalluqaya ficilkiina 5 baa ku tacalluqaya xarafkiina 5 baa ku tacalluqaya ismiga 5ta ku tacalluqa waxa weeye ismiga waa inaad tacriifkiisa ogaato horta ismi maxaa la yidhaah baro ismiga tacriifkiisa waa qodobka koobaad laba waa inaad haddana eegto ismiga ishtiqaaqiisa war ismiga halkee laga soo ishtiqaaqday oo kelmadda iyo asal u ahaa ilayn abtirkii kelmadahaynu baranaynaa kelmaddani xaggay ka timid waa qodobka labaad ishtiqaaqiisa mas'alada saddexaad ismiga aqsaamtiisu waa maxay kam aqsaamul ismi waa inaad tidhaahdo wararta ismigu imise u qaybsamaa waa masalada saddexaad mas'alada afraad waa xukmul ismi xukunka horta ismigu ma mucrabaa mise waa mabni xukunka ismigu uu leeyahay waa maxay waa masalada afraad mas'alada shanaad waa calaamadda ismiga sheekheenu 5taa xukun ee ismiga ku tacalluqa mid qura ayuu soo qaatay oo waa kee warkuu soo qaatay culimo waa kee calaamadda oo quru soo qaatay calaamadda ismigu calaamaduu leeyahay kuwa kale lagaga garto calaamadda oo qura ayuu soo qaatay ismiga ficilkana 5taa 5toodii baa ku xidhan oo calaamadda unbuu soo qaadanaya xarafkana 5taa 5toodii baa ku xidhan oo isna calaamadda unbuu soo qaadanaya falismu ismigii yucrafu waxa lagu garan bilkhafdi khafda lagu garan oo ismiga calaamadiisu waa khafdo khafdaha waxa ugu dhadhow hoos dhig inaynu nidhaa hoos dhig horta ma aha ereyga khafdaa hoos dhig lama yidhaa khafduhu waa 3 qodob 3 qodob baa khafdo la isku yidhaahdaa hoos dhiga qayb fatxada ka mida iyo qayb ya-da ka mida 3daasaa khafdo la isku yidhaahdaa khafdu waa maxay baan idin idhi waa hoos dhig kasraha iyo fatxaha qayb ka mida iyo ya-da qayb ka mida 3da eeg kasradu dhammaan ma aha kasraha qayb ka mida fatxaha qayb ka mida ya-da qayb ka mida baabul icraab baan ku baran doonaa baabani naga fogayn ayaynu ku baran doonaa ereygan khafdaa kuufiyiinta isticmaala basriyiintuna jar bay isticmaalaan jar kuufigu khafdu isticmaala basriguna jar buu isticmaala haddaad jar iyo khafdo maqasho waa isku miduun hadda eeg af soomaaliga innaga waxaynu nidhahnaa waan wacay iyo waan u yeedhay maxay kala yihiin hebel baan wacay iyo hebel baan u yeedhay wicidda iyo u yeedhiddu soo isku miduun ma aha waa isku miduun laakiin dee laba magaalaa kala isticmaala jar iyo khafdo waa isku macno uun oo waa 3daa qodob baa looga jeedaa qayb fatxaha ka mida qayb kasraha ka mida qayb ya-da ka mida 3daasaa khafdo la yidhaha ama jar loo yaqaanaa falismu ismigii yucrafu waxaa lagu garanayaa oo calaamad iyo astaan u ah bilkhafdi khafdo ereygan alkhafdi ah xarafka ugu dambeeya ayaa laga helaa khafdahe ereygan alkhafdi ah xarafkiisa ugu dambeeya waa maxay alkhafdi xarafka ugu dambeeya waa maxay waa saw daadka maaha xarafka ugu dambeeya daadka xarakadu sita eega haddaba saw hoos dhig ma sito waxaad ogaataa alkhafdi hadda waa ismi alkhafdi waa ismi waa la hubaa inay ismi tahay haddii daliilka sheeg lagu yidhaa waxaad odhanaysaa hoos dhiga yareeg bilkhafdi khafdahaasaan ku gartay waa kow wa tanwiini tanwiintana waa lagu garanayaa tanwiintu 10 qaybood bay u qaybsantaa af carabiga 4 qaybood oo tanwiinta ka mida ayaa lagu gartaa calaamadaha ismiga 4 qaybood oo tanwiinta ka mida ayaa calaamadaha ismi u ah oo calaamadaha ismiga lagu gartaa ama ismiga calaamad u ah tanwiinta 4teeda qaybood tanwiintu horta waa maxay sideedaba tanwiin marka laga warramayo Soomaalidu waxay moodaan tanwiinta laba godaal iyo laba kordhig iyo laba hoos dhig bay moodaan tanwiin
tanwiintu laba godaal iyo laba kordhig iyo laba hoos dhig maaha tanwiinta marka laga hadlayo at-tanwiin marka la sheegayo waa nuun reeban oo la qorin bal koobnideeda eeg tanwiintu waa maxay baan ku yiri waa nuun reeban oo qoraalka ka maqan bal hada muhammadun qor muhammadun daalka maxaad ku sameyn muhammadun yaa laba damaad siin soo maaha laba damo ma labada damaad tanwiintu muhammadun bal soomaali ku qor muhammadun sida aan ugu dhawaaqay soomaali ugu qor soomaaliga xarafka u dambeeya muxuu noqonayaa shibanaha ugu dambeeya muxuu noqonayaa muhammadun haddaad soomaali ka dhigto yaa na'bu noqonayaa soo maaha muxuu noqonayaa na caadiya buu noqonayaa haddaba tanwiintu inay nuun tahay ilaa luqadu way isfasiraane waka soomaaligu nuunka qoraya ama na'da qoraya nuunka ayaa marna la qoraa marna la xadfaa tanwiintu ma aha laba kordhow iyo laba hoos dhig iyo laba godaal waa nuun reeban oo la xadfay oo meesha ka maqan neew laba godaalku muxuu yahay haddaba talow laba godaalkan macallimiin badan ay noogu sharxaan in tanwiin la yidhaa ama laba kordhowgan ama laba hoos dhigani waa maxay muhammadun markaan idhaa laba godaalka daalka ka muuqda ma haysaa daalku miyuuna sidiisa damo u baahnayn labadan dameed arkayso midi waa damihii daalka iskale ka labaad baynu u baahannahay wuxuu yahay inaan ogaano sow ma aha waa calaamad iyo astaan inuu meesha nuun ka maqan yahay lagugu tusayo waa calaamad iyo astaan inuu meesha nuun ka maqan yahay lagugu tusayo raxmatan markaynu nidhaa raxmatan ta'daasoo nuun kama dambeeyo dhawaaqeenna nuunkaas xadfan baa tanwiin la yidhaahdaa nuunka xadfan ayaa tanwiin la yidhaha raxmatan markaan leeyahay labadan kordhow ee ta'da saaran midi waa fadxihii ta'du ay iska lahayd midi waa fadxihii ta'da midka kalena waa calaamada nuunka meesha ka maqan ku tusaysa haddaan raxmatin idhaa ama caliyin aan idhaa caliyin eeg nuunka maqan baa tanwiin la yidhaahdaa labadan kasree ya-da saaran midi waa kasrihii caadiga ahaayee ya-du ay lahayd midina waa kasro calaamad ku tusaysa nuunka meesha ka maqan tanwiintu haddaba culima ogaada inay calaamaadka ismiga tahay ama ismi ay calaamad u noqonayso waxaynu qaadanay watanwiin waa calaamada labaad ee ismiga lagu garanayo wa dukhuulil alifi wallaam alif iyo laamku hadduu kelmadda galo gelidda alifka iyo laamku ay gelayaanna waa calaamad saddexaad oo ismiga lagu yaqaano alba haddaad ereyga ku aragto inuu ismi yahay ogow الرجل بانكو يري ما اسمي با مسوى فعل مسوى حرف ما حد odhan الرجل waa اسمي دليلka ii sheeg baan ku oranaya ila wax la taaban karo waa inaad ii sheegtaay الرجل inuu ismi yahay daliilka ii sheeg baan ku oranaya الرجل waa maxay asha ku jirta weeyi الإحسان waa maxay baan ku oranaya الإحسان waa ismi inuu ismi yahay daliilka ii sheeg baan ku oranaya waa asha ku jirta waxaad weli ma ogaatiin waxaan weligood meel iskugu imanin tanwiinta iyo asha tanwiin iyo al meel iskuguma yimaadiin erey al wata haddaad aragto tanwiin waa in laga ilaaliyaa erey tanwiin sita haddaad aragtana al waa in laga ilaaliyaa laakiin marka asha aad ka daysaa tanwiinini ama markaad tanwiinta ka daysaad al ku dari laakiin labadaa ha isku raacinin waa dab iyo biyo calaamada afraad culimo ee ismiga lagu garanayo wa xuruufil khafdi وحروف الجر هذان هناك ورما ميا خلدمي وحروف الخفض halkan kale nahay hadaan وحروف الجر ka iraahdo ma khalad ba waa saxwi waa basriye kuufiun وحروف الخفض حروفta wax lagu khafdiyo ayaa iyaguna jira xuruuf baa jira wax lagu khafdinayo oo ereyga lagu khafdinayo xuruuftaasi waa 22 xaraf 22 xaraf ayaa loo yaqaana حروف الجر ama loo yaqaana حروف الخفض 22 kaas min baa u horeysa kaligeed baa 22 macna leh halkan ku sharximayna laakiin wahiya min weeyi ereyga min ah haddaad aragto min waxay ku jirto inuu ismi yahay un baad ogaanaysaa hadda wa minka wa min nuuxin ilaahay markuu yidhi wa minka kaafkaasi ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf wa minka kaafka ku jira waa ismi kaafka wa minka ku jira daliilka aynu ku garanayno wa minka kaafkaasi inuu ismi yahay waa maxay mintan ka horeysa weeyi haddaba markaan idhaahdo acuudu billaahi min ashaytaan
ereyga min ashaytaaniya sow ismi maaha ashaytaan waa maxay waa ismi saddex daliil baynu u haynaa oo isminimada sheegaya min ashaytaani hadda saddex daliil baynu u haynaa ma ila socotiin mintu sow hal daliil maaha oo xaraf jaar maaha marka koobaad alma ku jirtaa ashaytaani ashuna miyayna daliil labaad ahayn aynu soo dhigannay ashaytaani khafta ma ku jiraa ma hoos dhigan yahay hoos dhigay xarakada xarafka ugu dambeeya ee kasrada ah saddex daliil baynu min ashaytaani u haynaa inay ismi tahay hal daliil baaba inagu filaa maxay inagu filaa baynu nidhi hal daliil baa inagu filaa laakiin nasiibka saddex baynu u helay min wa ilaa ilaadu haddaad aragto erey ay ku jirto ismi unbu isna noqonayaa daliilkuna ilaadanay noqoni minta waxaa lagu macneeyaa meesha laga imanayo halkaad hadda aqoonta ka bilaabaysa min baa la geliyaa halka aad socodka ka soo bilaabaysa min baa la geliyaa halka aad wax ka iibsanaysa min baa la geliyaa eega damayla socotaa minta meesha laga imanayo ingiriisiga waa from oo kale weeyaan waxaad odhanaysaa dahabtu min almatcami hudheelkaan ka soo baxay ama hudheelkaan ka imid dahabtu min almatcami ama dahabtu min asuuqi suuqaan ka imid ilaaduna min bay ka soo hor jeedaayo waa halka la tegayo halka loo socdo ayaa ilaa lagu daraa waxaad odhanaysaa markaa ilaada maxay waxaad odhanaysaa sirtu ila almasjidi masaajidka ayaan u socday ama u lugeeyey hadda ila almasjididaa saddex daliil baan u haynaa oo isminimo sheegaya ma idiin muuqdaan saddexda daliil sirtu ila almasjid masjidka saddex daliil baynu u haynaa oo inuu ismi yahay sheegaya waa maxay saddexda daliil culimo ilaa waa marka koobaad albaa gashay oo masaajidku albu wataayo waa calaamada labaad khafdaa ku jiro xarakada yare hoos dhigan ah saddex calaamo oo mid qurihi inagu filaa oo isminimada mid kastiba sheegaya ficilka iyo xarafka waa ka mamnuucada calaamooyinkan iyo la soco wa can ereyga can ihi wax kala cararaya ayuu sheegaa can waa wax kala cararaya ama kala baxsanaya can waa maxay baynu nidhi waa wax kala baxsanaya ama kala cararaya almujaawaza baa lidhi ama wax isgudbaya waxaad odhanaysaa ramaytu sahma can ilqawsi ramaytu sahma leebka iyo fallaadha waxaan ka ganay ama aan ka tuuray can ilqawsi qaansadii baan ka tuuray ramaytu sahma can ilqawsi markaynu nidhaa ramaytu sahma can ilqaws markaynu nidhaahno ereygaa can ilqaws cantaasi waa xarfulkhafdaa ama xarfuljar'a ereyga ka dambeeya ismi unbuu noqon karaa wax kale ma noqonayo haddaba canilqawsidii ereyga qaws ah waa qaansada ayaa qaws la yidhaahdaa imise daliil baynu u haynaa hadda canilqawsi qawskaasi inuu ismi yahay saddex daliil baynu u haynaa waa saddexdee canta oo waxay gashaa ismi inuu noqdo waa kow asha ku jirta alqawsi oo ereyga ay gashaa ismi inuu noqdo waa laba iyo khafdaha hoos dhiga ah waa saddex imise daliil baynu u helay saddex daliil baynu u helay ramaytu sahma can ilqawsi leebka ayaa ka cararaya qaansada waa wax kala cararayaynu nidhi ilayne xarafka afraad calaadu waa dusha calaadu waa wax ka sarreeya weeyi waxaan odhanayaa maalan eeg wadactu lculbata calaa daawula baan odhan wadactu lculbata calaa daawula caagadan yaree biyaha ah ayaan miiska saaray sow maaha wadactu lculba ama wadactu ljawaala calaa daawula maxaan odhan calaa waa wax ka sarreeya ayay tilmaamaysaa haddaba calaa daawila markaan soo qaadanno ereygaa addaawila inay ismi tahay saddex daliil baynu haynaa waa calaada waa asha waa hoos dhiga khafdee xarafka ugu dambeeya aayadda suurat lfaatixa ku jirta calayhim buu ilaahay yidhi calayhim himtu inay ismi tahay imise daliil baan u haynaa himtu calayhim himtu inay ismi tahay imise daliil baan culima u haynaa calayhim markaan sheegayno himtu inay ismi tahay calaa baan u haynaa calaydan ka horaysa ayaa calaadii ismiga un geli jirtay ah calayhim himtu waa ismi waana ismiga qaybtii damiirka la odhan jiray isminimadana daliilkeegu waa calaada calayhim wa fiidu af carabiga saddex macnay ku timaadaa fiidu mar afkay noqotaa sida xadiidkii sacad bin mucaad xataa maa tajcalu fii imra'atika fiidu mararka qaarna waxay noqotaa maxay ficil iyo faacil waaba jumlo dhammaystiran fii inanta marka lala hadlayaa la yidhaha fii inanay oofi ballanta ninka marka lala hadlayana fa quroo hoos dhigan baa lagula hadlaa kolkaa fii haddaad inan ku tidhaahdo ya-duna waa faacil fa'dan hoos dhiganina waa ficlu amar fiidu mararka qaar waa jumladaa dhammayska tirana ficilka iyo faacilka ah inantoo quraana lagula hadlaa fiiduna mararka saddexaadna xaraf jaar bay noqotaayo
maxaan odhanayaa alcilmu fi suduur baan odhanayaa alcilmu fi suduur cilmigu halkeebuu ku dhex jiraa alcilmu cilmigu fi suduur laabuu ku dhex jiraa ereygan assuduuriya inuu ismi yahay imise daliil baynu u haynaa haddaba alcilmu fi suduur markaan idhaa saddex daliil baynu u haynaa daliilka koobaad waa maxay fiidu waa daliilkii koobaad asha ku jirta assuduurina waa daliilkii labaad hoos dhiga iyo khafdaha ka dambeeyana waa daliilkii saddexaad alcilmu fi suduur haddaan idhaa naxnu fii hargeysa ka waran naxnu fii hargeysa inagu hargeysaynu joognaa ayaan idhi naxnu fii hargeysa ereygan hargeysaa waa ismi oo daliilka aan ku garanaynaa waa maxay waa fiidan ka horeeya ayaan ku garanaynaa wa rubba ereyga rabbi maaha oo rabbilcaalamiin hamoodin waa rubba oo wada socota waa yaraabay noqotaa ama badnaabay noqotaa labadaa macno ayaa la siiyaa waxaan odhanayaa rubba rajulin kariimin laqiituhu badanaa nin sharaf le intaan la kulmay rubba rajulin kariimin laqiituhu badanaa nin sharaf le intaan la kulmay rubba rajulin markaan idhaa ereygaa rajulinihi hadda waa ismi saddex daliil baynu culima u haynaa inuu ismi yahay rubba rajulin rajul inuu ismi yahay saddex daliil baynu u haynaa saddexda daliil maxay noqonayaan rubba rajulin kariimin laqiituhu rubbadu sideeda xaraf jaar weeyaanoo waa calaamad waa kow rajulin tanwiinta ku jirta tanwiintu nuun xadfan buu ahaaye tanwiinta ku jirtaana waa calaamad labaad hoos dhiga laamkuna ilan rubba rajulin wuu hoos dhigan yahe hoos dhiga laamkuna iyo khafdahuna waa calaamad saddexaad ardaydu inta badan ma kala saaraan tanwiinta iyo khafdaha waa inay idin kala muuqdaan laba calaamadood oo sidooda u kala madax bannaan inay yihiin saddex daliil baynu u haynaa rubba rajulin kariimin laqiituhu waa yaraa ama badana walba bacdu iyaduna waxaad odhanaysaa xaraf jaar marartu bika baan ku idhi marartu bika war adaanku soo maray marartu bika adaanku soo maray hadda marartu bika markaan idhaa kaafka bika ku jira inuu ismi yahay yaa inoo sheegaya culimo marartu bika adaanku soo maray baan ku idhi kaafkaasi inuu ismi yahay yaa sheegaya bacdanaa sheegaysaa bacdani way sheegaysaa inuu ismi yahay acuudu billaahi markaan idhaa billaahi ereyga allah ah saddex daliil baynu u haynaa oo saddexda daliil mid kastiba inuu ismi yahay sheegaya acuudu billaahi billaahi saddexda daliil waa maxay ee billaahi aynu u haynaa culimo bacdu waa mid ka mida waa kow asha allah ku jirtaana waa daliil labaad hoos dhiga xagga dambe hada yar hoos dhiga ku jiraana waa daliil saddexaad mid baaba inagu filaa albaa walkaaf kaafkuna sidiisa wuxuu inooga baahan yahay calaamad wuxuu noqonayaa calaamad lagu garto waxaan inuu ismi yahay kaafku waxaan odhanayaa ana ka najmi war anigu xidigoo kale ayaan ahay ana ka najmi haddaba ka najmi markaan idhaa kaafka ka najmi ku jiraa waa xarfulkhafdaa ama xarfuljaar la odhanayo xarfujar weeyi ana ka najmi markaan idhaa ana ka najmi waxaad u fiirsataa ereyga annajmi waa ismi imise daliil baynu u haynaa annajmi ana ka najmi markaan leeyahay imise daliil baynu u haynaa ana ka najmi markaan idhaa saddex daliil baynu u haynaa saddexda daliil bal ii sheega kaafku sidiisa waa xarfulkhafda ama xaraf jaar asha ku jirta annajmina waa calaamad labaad khafdaha u dambeeyaana waa calaamad saddexaad ana ka najmi markaan idhaa wallaam haddaan lahu idhaa lahu eeg lahu baan idhi lahu hadaasi inay ismi tahay yaa culima sheegaya ama caddaynaya lahu markaan idhaa haadu waa ismi hadda waa la hubaa inay ismi tahay calaamadda aan ku garanaya haadu inay ismi tahay waa maxay waa laamkan ka horeeya alxamdu lilaahi markaan idhaa haddaba lilaahi inay ismi tahay maxaynu ku garanaynaa culimo laamku waa calaamad alqarsoonoo hadda aynaan arkayna waa calaamad labaad khafdaha xagga ugu dambeeyana waa calaamad saddexaad wa xuruufi lqasami xuruufta lagu dhaarto iyaguna waxay tilmaamaan waxaan inuu ismi noqonayo saddex xaraf baa marka la dhaaranaya la isticmaalaa midi wallaahi waa wowga oo wallaahi baa loo isticmaalaa midina waa ba'da oo billaahi baa loo isticmaalaa midina waa ta'da oo tallaahi baa loo isticmaalaa saddexda xaraf waa xurufulqasam baa la isku yidhaahdaa xuruufta xilliga dhaarta la isticmaalo wa xuruufilqasami xuruufta dhaarta ayaa calaamad ismigu uu leeyahay ah wahiya xuruuftaasi alwaawu waa wow walbaa'u iyo ba wataa'u iyo ta saddexdaa xaraf ayaynu isticmaalaynaa waa alwaaw iyo albaa iyo ataa saddexdaa xaraf ayaynu isticmaalaynaa
wowga marka aan isticmaalayno wallahi baad oran ilaahay baan ku dhaartay wallahi wowgani wuxuu tilmaamayaa kanuu ku jiraa inuu ismi yahay ba'duna sidoo kale saasoo kale ay calaamad u noqonaysaa ismiga sheegaysa billaahi baad oran billaahi la asuumanna gadan ilaahay baan ku dhaartay barreen soomi doona haddaba ba'du waa calaamad labaad oo tilmaamaysa waxaan inuu ismi yahay tallaahi la akiidanna asnaamakum ilaah baan ku dhaartay sanamyadiinaan burburin taadu waa calaamad saddexaad oo iyaduna dhaarta loo isticmaalo culimo kitaabkeennu calaamadaha ismiga intaasuu ka soo qaatay haddaba waa cashirkeennu shan qaybood buu ka hadlayaa baan nidhiye waa qaybtii saddexaad kalaamkii iyo tacriifkiisii waan ka hadalnay waa kow aqsaamtii kalaamku uu lahaa waan ka hadalnay waa laba ismigu 5 qodob buu kelidii inaga doonayaaye sheekheenu calaamadaha ismigu sheegay oo calaamadihii ismiga ayaa halka kaga baxnay calaamadaha ismiga baleega hadda imisa ayaa ismiga calaamadu ama lagu garanayaa buu yiri khafda ugu horeeyay kowdaha tanwiin baa ku xigtay laba ka dhig دخول الالف واللام شيخ waa lagu qabsaday oo دخول ال baa ka fududay دخول ال ereyga gasha waa calaamada saddexaad حروف الخفض waa calaamada afraad حروف القسم kuna حروف الخفض buu ku jira afarta calaamadood ayuu sheekhu ismiga inoogu sheegay afar calaamadood baa ismiga lagu yaqaanaa calaamada koobaad waa inuu dhakada ka qabataa ardayo calaamada koobaad waa khafdo calaamada labaadna waa tanwiin علامة صدحاتنا ودخول الألف واللام بو إنيري هذا أشاسي حرف جار معها علامة أفراد وحروف الخفض علامة أفراد ومحيبا إنو نري وحروف الخفض حروف الخفض هتيري مركعة وحسوقاتي من إيا إلى إيا عن إيا على إيا في واشن خربا إيا با إيا كاف إيا اللام هل كاسينا أفرك للسقال حروف القسم وصدحة لبية طبان حرف هذه بعض عدن كالاتيرينين كوبية طبان حرف او حروف الجر اما حروف الخفض ايو شيخ سو قاطي انتاسا اسمك علامه iyo astaanu ah bal ficilkana ila eeg ficilka maxaa lagu gartaa horta ficilku waa wax anigu aan sameeyo eeg dhammaan rag meesha jooga magacyadoodu waa asmaa magaalada inta meherad ku taala ma garanaysi bal sidaa u yar fikira meheradaha magaalada oo dhani waa wada asmaa magac kasto oo aragtaa waa ismi rag meesha jooga nin kasta magaciisu waa wada ismi waxa aan sameeynaynaa ardayay waa ficil waxaynu sameeynaa hadda nin kasta waxa sameeynaysa waa ficil ficilkii waxa weey marka fadhigaygani waa ficil eega dhaqdhaqaaqan farta yari sameeynaysa ma arkaysa fartu sideeda farta magacan farhi waa ismi dhaqdhaqaaqan ay sameynaysaana waa maxay waa ficil xarafkuna waa isku xidhe dhaqdhaqaaqa inay fartu sameynaysa shayga ku tusaya ama shayga jumlada tawkiidka ka faa'iideeya ama ereyga nafyiga iyo diidada faa'iideeya waxyaabaha noocaas oo kala xaraf loo yaqaan waan arkaynaa ficilka calaamadihiisa ficilku sidaynu ognahay ardayay saddex buu qaybsamaa inuu maadi yahay iyo inuu mudaaric yahay iyo inuu amar yahay ficilka saddexdaas laga dhigaa ficilka maxaa la yiraahdaa maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaas ficilka laga dhigaa hadaba qad waa calaamada koobaad ficilka lagu garto wal fi'lu ficilka yu'rafu waxa lagu garani biqad bidukhuli qad inay geli karto ayaad ku garanaysaa haddii qad ay geli karto ama ay ku jirto waxani waa ficil ereyga qad ama aragta amarka ma gasho waa mamnuuc saddexda ficil amarka ma gasho maxaa ii soo haray amarkii markaan halka iska dhigay maadi iyo mudaaric bay gashaa ilaahay baa quraanka ku yiri qad aflaha almu'minuun hada qadaasi maxay ku jirtaa qad aflaha almu'minuun aflaha waa maadi aayad kale rabbi wuxuu ku leeyahay qad ya'lamu allahu almu'awwiqin قد يعلم ومحي ومضارع هدبا جلس قد كدرسو محاضرا قد جلس علي ما فريستين حقيقه اهان يجلسنا قد كدرسو محاضرا يجلس مركز قد كدريسو قد يجلس علي باضرا هدبا قد جلس اني فعل تهي دليليس اي كان با لغو اورنيا الا waxa la yiraahdo lawla lima la kana al-himaru fadiha hadayna lima jiri lahayn dameer kuba caalim buu noqon lahaa baa la yiri dadka waxa lagu kala saaraa waa lima war waxaan muxuu sidan u noqday daliil ii keen waxaan maxaad u calaamad u ah waxa laga rabaa hadaba qad jalasa inay ficil tahay markaad sheegto maxaa daliilu aba lagu oranayaa haye qadan ku jirta ayaa daliilu ah qad yajlisu inay ficil tahay maxaa daliilu aba lagu oranayaa maxaynu oranaynaa qad yajlisuna maxaa daliilu aba ina oran qad yajlisu maxaa daliilu aba ina oran qad ka horeysa ayaa daliilu aba ina oranaynaa وهكذا
والفعل فعلك يعرف وحا لغو غرانيا بقد اريغا قده وحو ممنوع كيهي اسماء بل محمد قد ما كدري نين كستو مغعاغا قد كما وريسين كرتي قد محمديو قد علييو قد احمديو اف عربي بماها لا يمكن ان نقضان اف عربي قد ماضيga markay gasho laba macnay faa'iideysaa mar xaqiiqa ayay faa'iideysaa oo qad aflaha almu'minuun bi ilaahi leeyahay dhabahan mu'miniintu way liibaanay wax xaqiiqa ahaan marna taqriib iyo soo dhaweyn bay faa'iideysaa oo qad qaamat as-salaah marka la leeyahay waxa dhawaaday salaada in loo kaco weeyaan asiin calaamada labaad culima waa siinka siinku waa calaamad labaad oo lagu garanayo ficilku inuu iska leeyahay calaamad ficil inay tahay siin kaasi mudaarica oo qura ayuu galaa xagga dambana kama raaco bartankana kama raaco xagga u horeysa ayuu ka galaa siinku xaguu ka gelayaa baynu nidhi siin markaan doonayno ma xagga dambuu ka geli ma bartankuu ka geli mise xagga horuu ka geli siinku xagga u horeysa ayuu siinku ka gelayaa mudaarica oo qura ayuu galaa wuxuuna ka dhigaa wax soo socda yaakulu saw maaha mudaaric wuu cunayaa saw maaha yaakulu siin ka horreysii maxaad odhan markaa sayaakulu wuu cuni doonaa yansuru wuu u hiilinayaa saw maaha siin ka horreysii sayansuru wuu u hiilin doonaa culima waxaan idinka digayaa siinku markuu mudaaric calaamadu yahay waa siinka haddii la jaro ficilkuuna waxba u waayaynin waa siinka hee haddii la jaro una ficilku waxba u waayaynin bal sa'ala ka warrama haddaynu nidhaa waa mudaaricoo siinkaan ku garannay sa'ala waa mudaaric maydhaa siin baa ilinka ugu horreeye jawaabtu waa maya suurtagal maaha oo maxaan ku ogaaday inayna suurtagal ahayn sa'ala bal siinka ka jar adaa ila arkiye maxaa soo hadhay ala waa maxay macnaheedu markaa cidibo garan mayso kolkaa eeg siinkan markuu ficil mudaaric calaamad u noqonayo waa marka haddii la gooyo una erayani waxba u waayaynin sa'alo oo kale yuuna inaga noqonin ilaa sa'alo oo kale siinkii haddii la jaro siinkii waxba u noqonayaayo uu u waaye saalim ka waran ama salmaan ninka la yidhaa haddii aynu nidhaahna siinkaa laga goynayaa ka warrama salmaan siinka ha laga gooyo sinaba suurtagalu ma aha eeg waa siinka haddii la gooyo kelmaddu ayna waxba u waayaynin wax soo socduu ka dhigaa yaquulu wuu leeyahay weeyi sayaquulu markaan idhaa waa maxay macnuhu markaa sayaquulu wuu odhan doonaa yejlisu wuu fadhiyaa wey sayejlisu waa maxay macnaheegu fadhiisan doonaa yaakulu wuu cunayaa wey sayaakulu waa maxay macnaheegu wuu cuni doonaa وسوف كلمة سوفا با يدنا علامة سوف وا علامة كله او فعل كمضارع او كليه لغو غرتو مضارع او قرايه علامه لغو يقانا سوف وحين كدغتا سيدو كله wax mustaqbal oo soo socda raga qaar baa yiri sawfada wax lagu daro aakharun baa la arkaaba kala sawfa ta'lamun hadaynu nidha gadaal baad ka ogaan doontiin markuu ilaahay leeyahay aakhirad ogaan doonta laakiin waxa la ogaaday warwa wax soo socda ama aakhiraha ahaato ama ha ka soo horeyso adoo wax mustaqbal oo culimada qaar baa yiri sawfadu 12 sano kadib waxa dhici kara baa la gelin karaa ugu yaraan 12 sano wixii ka dambeeya sawfa lagu daraa waxay u daliishadeen aayadan quraanka ah ya ayuha alladhina aamanu man yartadda minkum an diinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum aayada quraanka ah maalintay soo degtay iyo maalintii Abi Bakar ummado badan oo muslimiin ah ay gaaloobeen 12 sano u dhaxeeyay bay yiraahdeen halka waxaan ka qaadanay sawfadu 12 sano iyo waxay ka sii dambeeyeen inay tahay halkaas ay la mareen sawfa waa wax soo socda ficil mudaaric bayna astaan tahay يجلس محاد ورن كرتا هذا إلى المضارع ودن وتقدر سن كرتا يجلس محاد ورن سوف يجلس بعضنا سوف يجلس مركات لا إن يجلس مضارع تهاي أستان تهي علامة أتكو قرن إنسان وامحي سوف يجلس مركات لا سوف ذوي علامة علماء أفراد وتاء تعنيث أساكنة تاء ذير اللي لا تاء تعنيث أساكنة وتاء ريبا حق ضمبين فعل كراعدا ماضي قرأ أيقشا ماضي قرأ جاء ويمد سو ما هين ويتمد marka doonaysa inaad tilaado gabadh ka dhigto jaa'ada tareeban ka sii dambeysii maxaan oranayaa jaa'adi jaa'at baan oranayaa jalasa maxaan oranayaa jalasat baan oranayaa kharaja maxaan oranayaa kharajat baan oranayaa kharajat hadaba inay ficil tahay maxaa daliilay culimo loo hayaa
تاء تانيث اساكنه تاء يري حق دنبه كراعده نينك اديميا markuu leeyahay qad qaamati salah qaamad waa ficilay mise daliil baa loo hayaa qad qaamati salah ninka adimaya markuu leeyahay qaamad waa ficilay mise daliil baa loo hayaa laba ficil baa loo hayaa labada ficil sheega bal midi waa qad kalabaadna waa maxay waa taa taaniiska kalabaadna labada daliil ayaynu haynaa oo qaamadaas inay ficil tahay hadda cadaynaya culimo waxaynu halka ku qaadanay afar calaamadood oo calaamadaha ficilka ah wal fi'lu ficilki yu'rafu waxa lagu garan biqad kelmada qad aba lagu garan wasiini siina waa lagu garan wasawfa sawfana waa lagu garan وتاء تانيث أساكنة تأذير تاء تانيث كأر ريبنا ولا مقرن أفرت علامات إيجا هذا قد بقوه الرئيسة ما هي علامات واحد مصدق لقيبود فعل كمثال لبا قيبود لبا قيبود ومحي وماضي إياه مضارعة صح سين يسوف لبا سي علامات واحد سين كيسوف ذو مضارعة أو قرة تاء تانيث أساكنة يي علامات واحد تاء تانيث أساكنة ماضي او قرا امركي با انو ديمان سو ما اها امرك علامadiisa sheekheena wuu ka aamusay calaamad amar lagu gartay ayaa jirta wuu ka aamusay sheekhu wuxuu ga aamusay ardayda ayuu u turay wuxuu isii meelaha kale ha ka bartaan kutubta kitaabkan ka sarreeyaha ka sii bartaan amarka calaamadiisa wuu ka aamusay waynu ku darsanaynaa inagu calaamada amarka lagu gartaa waxa weeyi ficilka amar waa in xarafkiisa u dambeeyo inta inaad kasrin karto يا ريبنا أتكلم بيسين كرتو أمرنا وكتوسية ضلب إجلسوا فريسة معها قبل مرك الله يسمح هذا يا يركسي ده إجلسي إننا فريسة وي يا ذا يري حاجة دمك الراعي قبوله يا مؤنثة المخاطبة مع دلالته الطلب وإنه ضلب نكتوسيه يا ذا لو يقان يا مؤنثة المخاطبة وأقبله لبضع على مدار هذه اللي يسلها الأمر بنقضي شيء قل محانا رأي هذا قل إنه أمر يا إمكان تذكر عدينه وحو أقبل يا يوم نسة المخاطبة طلب نوي تصيع محان هذا قل قولي إننا إله اذهب محان رنا يا إمكان دوني إننا عديين أمر تهي اذهبي إننا يتق كل كي يأذاير نوين وأقبله طلب نوين ويتصو علم واحد يقهري هذو طلبوني تصو أو يأذى وأقبلي وآيو سهبا كميدة سه إرجع سه معنيه ما مغشي سه أو وصاد إياها اسكو ريبا سه وآمس وي سهداس iyadoo aamusa ma aha hadana amar waayo yaadi bay aqbali weydi arab lagama maqal iyagoo sahiil ma yiraahdin ninka marka la hadlayo sah bay ku yiraahdin gabadha marka la hadlayana sah bay ku yiraahdin maba aha hadaba ereyga sahihi maxay ficil amarba ma aha waayo calaamadii buu aqbali waayay wal fi'lu fi'ilki yu'rafu waxa lagu garan biqad kelmada qad ayaa lagu garan وصين سين با لغو غران وسوف ايا لغو غران وتاء تانيث اساكنه تاء تانيث كيربن ايا لغو غران والحرف علم حرف كعلامتي سواكي انه ugu dambeeyay shantii qodob ee cashirkeena xarafka ugu dambeeyay xarafka calaamadiisa balila eega wal harfu xarafkiina ma ka weeyaan la yasluhu ma'ahu una usuban karaynin دليل الاسم اسم دليل كي ولا دليل الفعل يفعل دليل كي تانا دليل اسمي هي دليل فعل تانا شيء كان قادن كريم بحرف لي هذا علم حرف كعلامه سيله ايغا horta ismiga ay misal calaamadu soo sheegay markii dhawey afar baan ismiga calaamadiisa ka dhignay ficilkana ay misal calaamadaha ka dhignay afar baynu ka dhignay soo sideed maaha hadaba xaraf waxa loo yaqaanaa waxa calaamadaha ismiga laga waayo qaadanna kari waaya calaamadaha ficilkana laga waayo qaadanna kari waaya marka calaamad ismi shayga ka weydo waad ku eegi bal inuu qaadan karayo haduu qaadan kari waayo calaamadihi ficilkaad ka baari hadaad ka weydid calaamadaha ficilkana waad ku eegi hadaad qaadan kari waayo inuu xaraf yahay xukun war xaraf waadaga malaha dariiqan dariiq ka duwaneen culimadu shaxaan baa qaadan lahayd علماء صايد الله وحين حرف كعلامة سواء علامة الآن علامتها اسمك يقوى فعل كبها لجوا يبينون وحل مودين يرى هذا تحيب المودا إن سحرها ينا خلدنا هي ما جرنا يوم وحجا هذا يقبل المودين كشران
ما إلا سعطة هذا أضيقينه هلكا كدح مغضى لموداي علم ما أدكا نفطيين إنه شاكين وحبا أضيق أنكو تلمامو حرف كلمة ما أنت وحو تاغيه هي ألف بعد مركي لديغان شيري حقدو هلكي تاغنيد حقدو هرتا جيم كما حين كنا قاني جيم نبيع ذا هوسي خاضنا ما حين كنا قاني نبيع ذا الصريح حقدا ما حين كنا قاني نبيع لهانسا وماها والحرف ما أنت هلكي حقدو تاغيه حقدو ما يندبي جرتي يا حقدا عربي ما حين دبيع لغو سمين ويدميي لوران جرني سو ما يماها جوابتو هذا هو سيدي وكالو waxa lagaaga baahan yahay maskaxdaadu inay ku tababarato calaamadaha ismiga sidoo kale calaamadaha ficilka ereyga markaad u baahato wuxuu yahay inaad qiimayso si degdeg u eego de calaamadihi ismiga ka hel ama calaamadihi ficilka ka hel wal harfu harafku ma ka weeyaan la yasluhu una usubanaynin ma'ahu mi'isa dalilul ismi ismiga wax ku tusa oo calaamadu aha ismiga wixii calaamada u aha ولا دليل الفعل هي فعل كطونا وهي على مضوها برطا أي عشر كأني علم كل ماضي لكن إلى آجا وين العشر كشقينا عشر كوين كشقينا هذا كلمة ده مدمدو كلا جرني متكستي دليل كيجي شيخو وحكا بدل ما برنكرتي تا أقول هل كي أقول سيسير إنه قبل لونه كلمة دينا نكلا برنا الكلام هذا واسمي دليل الله يا شيخ علم الكلام إنه واسمي قلبك وجرته هو هذا واسم إرجع هو إن اسم تاي دليل كلاجو جرانا يو إسناد وحلا يلاوي يعني إنك علامة وشيخ وكتجيء شان يصدن علامة دوت باتشرو اسم كلاجو جرتو أفر كميدون بوينار دقي اللفظ واسم إرجع اللفظ إيه أرمحنكو جرانا يا اللفظ إن اسم تاي أشيخ وجرته المركب واسم المركب محنكو جرانا يا المركب إن اسم تاي أشيخ وجرته المفيد واسم إرجع المفيد ويه معانكو قرطاينو اسمي هي أشكو جرتا بالوضع واسم بالوضعنا معانكو قرطا صدح دليل بانو هينا بعض حرف جارة وكو أشكو جرتا واللبا خفضها وأقسامه ووغا يرمار كيسا وأقسامه ووغا ووغا محي مركا وأقسامه ووغا كجرا ووغا سوا حرف وايو علامته اسمي كان ما قادنا ايو علامته فعل كان ما قادنا ايو midna calaamad ismi iyo calaamad ficiltoona ma qaadanayo de waa xaraf hadaba waa calaamad la'aan calaamadiisu aqsaamuhu aqsaam waa ismi maxaan ku garanayaa aqsaam inay ismi tahay waxaan ku garanayaa al bay qaadan karaysaa oo maxaan oran karaa al aqsaam baan oranayaa aqsaamuhu hada yarina waa ismi hada yari hadu waa ismi labaad oo madax banaan maxaan ku garanayaa hadu inay ismi tahay min bay ka hormari kartaa oo maxaan oranayaa minhu ثلاثة واسمي معانكو قرنا يا ثلاثة إنه اسمي تاي تنوينتا اسم واسمي معانكو قرنا يا اسم إنه اسمي يهي تنوينتا وفعل ووغ وحرف معانكو قرنا يا علامة لآنتا فعل نوا اسمي هلك وربا كسوبة حي علمه فعل ومحي بينو نري فعل واسمي فعل واسمي ومعانكو قرنا يا فعل إنه اسمي يهي تنوينتا يقول ورقانون يميزان بالهيستا قلب يربط هيستاد wax ku eegayso waad ka indha dheer tahay ragii kale maanta ficil maanta waa ficil ma aha waa ismi ereyga ficil waa maxay waa ismi oo maxaad ku garanaysaa ficil inuu ismi yahay de sheega ficil tanwiinta ku jirta ayaan ku garanaynaa harfun waa ismi isna harfun maxaa lagu garanayaa harfun inuu ismi yahay tanwiinta culima halka waxaan isweydiiyay durtaba su'aalan isweydiiyay baa jirta oo oranaysa war markuu ficil ismi noqday حرف النو اسم النقض يا فعل حرف نقض هنا طلب فعل هذا دواء فعل وفعل كيه وجاء أكل خرج قتل شرب كواسا فعل فعل هذا ما ينمجع بهنا علمه ويبقى مجع فعل هذا ما فعل لك دواء مجع فعل هذا ما اسمه مع حروفه من إلى عن على كواسا حروف تمية ينمجع بهنا مجع حروف تنم حالي هذا حرف جواب مقع كان هي ومقع حروفته سيدا وصودا ما يستر إن شاء الله تعالى علمه عشر كأني ما انتبرتاسو إنه شوقي دونا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم لما كعيو ما أنت